السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردت سؤال هذا مركز عشر كان امتحانها قيبتين وقيبتي conversation كيان ولي كجرنا قيبتي أفراد يعني مرينا إن شاء الله. and كل هذا الأصحاب هذا اللغة الإنجليزية and beginners for 6 month course إن شاء الله وحنسي ودنا دتك عصب وإنجليز عصب هاي course أو 6 month يعني سين دونا سي أي لغة بس كيس إن شاء الله. waxaan sii gudagalaynaa casharkeeni conversation ka afraad waaye. maanta waxaan haysanaa laba qof, Yasmin iyo Yusra. labada qof ayaa wada sheekaysanaya. marka Yasin ayaa hadalka bilaabay, hi Yusra. waa dhabaan dad is yaqaano, waa is garanayo. markaas Yusra ayaa gabadha lahay ay u jawaabtay, waxay tiri hi Yasin, what's up, maxaa jiro? marka Yasin ayaa muxuu dhahay, I'm looking for the airport. waxaan rabaa in airport ayaan rabaa. Can you tell me how to get there? ma ii sheegi kartaa meeshaas sidaan ku tagi lahaa? sida airportkaan rabaa, ma ii sheegi kartaa airportka dhanku iga jira ama sidaan ku heli lahaa? marka Yusra ayaa u jawaabtay, markaas waxay tiri no sorry, bay tiri maya ma garanayo, waan ka xumahay ma garanayo. I don't know, maya ma garanayo. No sorry, maya I don't know, ma garanayo. Yasin ayaa marka wuxuu yiri, I think I can take the subways to the airport. Do you know where the subway is? marka wuxuu dhahay, I think, waxaan filayaa, I can take the subways waxaa la lahaa qaybta tareenada dhulka hoostiisa maro, tareenada maraan oo dhulka hoostiisa ee subways la. so I think I can take the subway. wuxuu dhahay waxaan filayaa inaan subway aan maro, ayaan rajeynayaa, to the airport saan u aado. Do you know where the subway is? marka subway tareenada dhulka hoostiisa mara stationadooda ama meesha laga raaco tareenadaas ay maraan ma taqaanaa u dhahay. marka do you know ma taqaanaa where the subway is? meesha tareenada stationkooda dhulka hoostiisa maraan ay ka baxaan ama station ama tareenadaasi aaw. marka Yusra ayaa u jawaabtay, marka su-aasha la weydiiyey waxay tiri sure, waa xaqiiq, it is over there. ma taqaanaa ilaa ma sure waa dad, marka waan garanayaa ama laga wada sure xaqiiqdi amal, it is over there, halkaas way tiri. marka halka camal meel bay u tilmaamaysaa. Yasin baa hadlay, marka uu where, waa halkee? I don't see it, I don't see it, ma arki ayuu dhahay. I don't see it, ma arki. marka where uu dhahay su'aal waa halkee? I don't see it, ma arki. marka Yusra waxay tiri across the street, wadada. marka saa aad meelaha u goysid wadada dhinaca kale, across the street bay tiri, wadada dhinaca kale ayay. marka Yasin muxuu dhahay marka waxaa hadal marka waxa la yaabta mise waxa aad filayn meel aad ka aragtid marka ayaa loo isticmaala hadalka uu dhahay marka I see it now, thanks. I see it now, thanks. marka wuxuu dhahay I see it now, hadda waan arkaa, thanks, waana mahadsan tahay. Yusra marka gabadha waxay tiri no problem, wax dhib ma lahan. Yusra marka Yasin wuxuu weydiiyey do you know, ma taqaanaa, ma garanaysaa ama ma taqaanaa if there is an resting room around here? ma taqaanaa hadday jirto meel resting room, meelaha waxaa la dhahaa oo markii bas diyaaradaha meesha laga raaco building weyn oo musqulaha iyo laguna nasto, musqulaha iyo waxa ku yaalin baa la. marka wuxuu dhahay do you know, ma taqaanaa if there's a resting room around here? hadday jirto resting room, meelahaas lagu nasto, musqulaha public toilet ku yaalin, musqulaha dadweynaha ku yaalin oo meelahaas ah, hadday meelahan ka dhowdahay around here, hadday meelahan ka dhowdahay, meelahan ka dhow, meel ay ka dhow saas ma jirtaa. Yusra ayaa u jawaabtay, waxay tiri yes, there's one, waxaa jira mid
here halkan. It is the store. Waa meelaha storeka waxaa waaye meelaha alaabta lagu xarayaa la dhahaa. Marka wuxuu ku yaalaa dhankan mid baa ku yaalo meeshan storeka ayuu ku yaalaa ay tiri. Thank you da marka yaasiina aad baad u mahadsantahay. Markiis waxay u jawaabtay you are welcome. soo dhow. You are welcome. soo dhow bay tiri. Casharkan ku celin doona insha Allah. Conversation waa qaybtii afraad. Marka conversationkan wuxuu u dhaxeeyaa Yusra and Yaasiin buu u dhaxeeyaa. Marka Yaasiin ayaa wuxuu yiri hi Yusra. Seta Yusra ama laga wada hi was just hi. Qof marka islaamista hi Yusra. Seta Yusra. Markaas wuxuu yiri Yusra waxay ku jawaabtay hi Yaasiin. Hi. What's up Euras? Maxaa jira? Maxaa cusub? Maxaa ka cusub? Maxaa jira amal loo isticmaalo what's up? Markaas wuxuu tiri maxaa ka cusub? Maxaa haysaa? Yaasiin markaas wuxuu dhahay I'm looking for the airport. Waxaan rabaa airportka ayaan rabaa. Can you tell me ma ii sheegi kartaa how to get there? Sida meeshaas ku tagaa airportkan rabaa isaan ku tagaa ma ii sheegi kartaa? Yusra marka waxay u jawaabtay no sorry maya ka xumahay. I don't know ma garanayo. Yusra waxay u jawaabtay no sorry waan ka xumahay. I don't know ma garanayo. Marka Yaasiin baa hadlay markaas wuxuu yiri I think waxaan filayaa I can take the subways. Waxaan marayaa qayb subwayga mana waxaa la meelaha tareenada dhulka hoostooda maro ama tareenada stationkoodii oo ku hoose dhulka hoostooda mara ay ka baxaan baa la. Marka wuxuu dhahay waa inaan maraha raaca ama aan maraa qayb tareenada dhulka hoostooda maro to the airport si aan airportka aan ugu aado. Do you know ma garanaysaa wuu yiri where the subways meelaha subway tareenada dhulka hoostooda mara ka baxaan ma taqaana halka laga helo. Marka wuxuu yiri do you know the way the subways marka ma taqaana wuu yiri meelaha stationadaas mise meelaha goobaha ay ka baxaan tareenada dhulka hoostooda oo aado garoonka airportka diyaaradda laga raaco. Yusra marka waxay tiri gabadhii sure yes bay tiri ha amal waaye it is over there halkaas ayaa stationka meel bay u tilmaamaysaa. Marka waxay tiri halkaas ayaa laga helaa garoonka I mean stationka ma ka baxaan goobtaas ka baxaan tareenada dhulka hoostooda maro ay aadaan airportka. Yaasiin ayaa wuxuu yiri where waa halkee? I don't see it ma arkaa meel bay gacanta looga taagay. Marka wuxuu dhahay where waa halkee? I don't see it ma arki. Marka Yusra waxay tiri cross the street wadada dhinac kale wadadan dhinac kale ayay ku taalaa. Markaas wuxuu yiri Yaasiin waa hadal meelaha la yaab loo isticmaalo waa hadal la yaab. I see it now hadda waan arkaa weli thanks waana mahadsantahay. Yusra ayaa marka waxay tiri no problem wax dhib ma lahan soo dhow amal baa laga wadaa. Marka Yaasiin wuxuu yiri do you know ma taqaanaa if there is a resting room around here? Ma taqaanaa meel lagu nasto meelaha musqulaha laga helo oo meel diyaarad la sugayo ayaa la resting room. Marka meesha resting roomka la dhahayo ma taqaanaa meelahan around here meelahan ku yaala ma taqaanaa meel aad taqaanida meelahan ku yaala ma yaala wadaay marka ma jirtaa wadaay. Marka Yusra waxay tiri yes waan garanayaa there's one waxaa jira mid here halkan it is the store waxaa meesha alaabta lagu xareeyo waaye meeshaas alaabta lagu xareeyo meel u dhow ayaa laga helaa. Yaasiin marka wuxuu yiri thank you waa mahadsantahay. Yusra waxay u jawaabtay you are welcome aad baa u mahadsantahay. Marka ardayaal cashirka hore wuu ka yara duwan yahay wuuna ka badan yahay tan kale muhiimad qaas ayuu leeyahay cashirkan because cashirkan inta badan waxaa waaye waa su'aalo maalin walba u baahan tahay inaad ogaatid su'aalo maalin walba aad qofka inaad weydiisid la rabo. Taasi waa marka safar tahay ama marka qof wax weydiinaysid dadka inta badan Soomaali laguma hadlo marka waxaa la dhahaa waa conversation laakiin it's special
because direction iyo dadku siinaya meeshan direction baa la isweydiinaya labada qof waxay isweydiinayaan markasta sida direction laga helo intee laga helaa bas intee laga raacaa airport intee loo maraa marka already meeshan waxaad ku aragtaa waxaa ku jiro direction badan direction waxaa la dhahaa tilmaamo qofka markuu wax kuu tilmaamayo camal marka tilmaamahaas aad bay muhiim u Englishka aadna way u dhib badan yihiin qof waxaa arki kartaa luqadda ku hadlaya laakiin markay imaato in direction ama tilmaanta la bixiyo aad ugu adag tahay soo cashirka aad muhiim u yahay qof kasto sababtoo ah directionka iyo sida qofku wax loo weydiiyo sida loo tilmaansado meesha lama isticmaalo bidix midig lama isticmaalo waxaa la isticmaala laakiin waa English soo inaad garatay aad bay muhiim u tahay marka cashirkii waa maxaa la dhihi jiray halkaan ayaan ku joojinaynaa hadduu alla idmo markii u dambeeyay ayaa hal mar dul maraya hadduu alla idmo insha Allah conversation wada sheekaysi Yusra iyo Yaasiin u dhahay marka waxay Yaasiin wuxuu dhahay hi Yusra seeta Yusra waxay tiri hi Yaasiin sida hi whatsapp maxaa jiro maxaa ka cusub I'm looking for the airport waxaan raadinaa airport can you tell me how to get there ma sheegi karta sidaan airport ku aado Yusra waxay tiri no sorry ma garanayo I don't know ma garanayo no sorry waan ku xumahay I don't know ma garanayo Yaasiin muxuu ku yiri I think I can take the subway to the airport waxaan raacayaa tramada meeshooda tramada stationkiisa tramada dhulkastooda marayaan raacaya si raacaya so that aan u tago airportka do you know where the subway is u dhahay marka subwayga meesha tareenadaas ay ka baxaan mise dhulka hoostiisa tareenada ka baxa subway la waa halka stationkooda mise meelaha ay ka baxaan goobta ay ka baxaan ma garanay hadan wali oo sii weydiinaa markaas waxay tiri Yusra u jawaabtay sure waa okay amal waa okay amal waan garanay sure marka su'aasha la weydiiyay waan garanay walaal it's over there waa halkaas bay tiri halkaas it's over there waa halkaas Yaasiin marka wuxuu yiri waa halkee I don't see it ma arki marka Yusra waxay u jawaabtay cross the street wadada markaas saa u goyso wadada dhanka loo gooyo Yaasiin marka wuxuu yiri oh I see it now marka wuxuu dhahay waa arkaa thanks waan mahadsantahay Yusra marka waxay ku jawaabtay no problem so wax dhibay ma lahan so Yaasiin marka do you know ma taqaanaa if there is a best resting room around here haddii jirto meel lagu yara nasto meelahan airport agaarkiisa meel laga nasto jirto yes Yusra waxay u jawaabtay yes there's one here waxaa jira mid halkan ah it is the store wuxuu u dhow meesha alaabta lagu xareeyo store uu dhow yahay ayuu dhaweeyay markii Yaasiin wuxuu thank you aad baa mahadsantahay ayuu yiri you are welcome so dhow insha Allah waxaan filayaa in casharka qof kastaba si fiican u fahmay assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh